guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka da'ayay roobabka guga iyadoo daadad waaweyn oo ka dhashay roobabkaasina ay waxyeello geysteen beebka weyn ee biyaha soo gaarsiiyay degmooyinka Maxamuud Haybe, Maxamed Mooge iyo Axmed Dhagax ayaa markii labaad daadadkaasi ay waxyeello gaarsiiyeen kadib markii uu jabay beebkaasi oo waraabin jiray 100,000 oo ku dhaqan caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa go'ay. Xukuumadda Somaliland iyo waliba wakaalada biyaha ayaan ilaa haatan wax tallaabo ka qaadin beebkaasi jabay. Sidoo kale waxa ay waxyeello gaadhay bridge-ka weyn ee magaalada Hargeysa. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo sharaxaya qaabka uu jabay beebkaasi. beebkan waxa weeye beebkii guud ee halkan mari jiray berigii hore u talaabi jiray xaafadda Axmed Dhagax iyo Maxamuud Haybe. waa beebkii labada xaafadood waraabay qalada way yimaado wakaalada intii wala la xaamad wax laga qaban karaa wuxuu inta wax ka qabasho leeyahay laakiin markuu daadku la tago dib badan deemush dabilay waxa kaloo halisa lugta imka biriishka ayaa halisa oo ay u baahan tahay inaan laba heli karin haddii wax noqoto lugta biriishka wax ku qaban kartaa waxyeello weyn bay qabtaa wuxuna inta laga hortago waxa laga qaban kariyo awood u tahay in laga qabtaa fiican laakiin hadhow markuu dhulka galo dibteeday leedahay daadna wuu jiraa dadaal darrana way dhacday. si kastaba ha ahaatee waa markii labaad ee beebkaasi uu jabo iyadoo bulshada ku dhaqan caasimadda Somaliland Hargeysa ay wax iska weydiinayaan sababta ay xukuumaddu qorshe uga sameyn weyday waxyeellada ka dhalan karta roobabka maadaama ay tahay markii labaad ee beebkaasi uu jabo. waa Maxamed Muriq, shabakadda wararka ee Tog Herar, Hargeysa.